bal ii faahfaahi sidee bay raaxada insiga uga wanaagsan tahay midda jiniga adigana labada raaxo ma wada dhadhamisay midda jiniga iyo midda insigaba abuurista jiniga iyo insiga ayaa asal u ah sababta ay xagga raaxada ugu kala wanaagsan yihiin tusaale insiga jirkiisa oo dhan waa raaxo jiniga jirkiisa raaxo male ilaa uu insi isku ekaysiiyo xubin walbana oo insiga jirkiisa ka mid ah waxa ay qayb ka qaadataa xaraaradda la xiriirta raaxada inta ay labada qof isxoodaaminayaan balse jiniga sidaas ma ahan dareenka xoodaamaysiga male jiniga haddii aan tusaale ku siiyo jiniga waxa uu leeyahay gacmo ka duwan kuwa insiga gacmihiisu waxa ay leeyihiin 5 farood oo ka mid ah mid walba xubin laalaabanta ayay leedahay far walbana kaligeed ayay sida ay doonto u dhaqdhaqaaqi kartaa balse jiniga waxa uu leeyahay 3 farood oo isku dhagan xubno ay ka laalaamaan aan lahayn sidaa daraadeed ninka jiniga ah gacmihiisa si kastoo ugu taataabto naagta jiniga ah jirkeeda wax raaxaha kama dareemayso waayo waa iyada oo alwaax lagu taataabanayo oo kale waxaana u sababa in ay yihiin 3 farood oo isku dhagan wax xubno ahna aan lahayn oo isku siman adagna ah balse insiga farihiisa baa mid walba goonideeda u dhaqdhaqaaqaysa jirkii bay taataabanaysaa waa ay jilicsan yihiin oo jirka way u roon yihiin taabashadooda jirka ku abuuraysa dareen labada qof isku soo jiida tusaale haddii aad farahaaga inta dhab isku wada siiso qofka jirkiisa ku taabato dareen ay bixinayaan lama mid ma ahan marka faraha oo jilicsan ay jirka si halhaleel ah u salaaxayaan mar walba oo 5 farood wada dhaqaaqayaan dareen iyo xaraarad ayaa ka abuurma waana nimco oo Allah insiga u manaystay ha ila yaabin haddii aan xoogaa xaajada marada ka qaado faraha ninka rag ah qayb weyn ayay ka qaataan dareenka gabadha haddii faraha lagula salaaxo qaybaha dareen wadka gaar ahaan cambarka horaadada iyo hareeraha xudunta haddii aan ku weydiiyo adiga waxaan oo dhan aad sharxayso sideed ku ogaatay maadaama aadan weli guursan anigu 30 sano ayaan daawanaya Soomaali habeenkii reerkooda dhaqanaysa caruur badan oo jidadka iiga hortimaada ayaan maqaato u ahaa habeenkii hooyada ee calooshada galeen xaaladda jiniga waan iska ogahay waayo aniga ayaa ka dhashay waana la socdaa sababta aan nin insi ah u jeclaaday waa raaxadaas tirada badan oo aan sheeda u ka daawada darteed runta haddii aan kuu sheego gabdhaha jiniga ah aad ayay u daawadaan marka ay insiga isku hawoodaan weliba gabdhaha jiniga ah aad ayay u ooyaan oo u ilmeeyaan marka ay daawanayaan xaasaska insiga ah ee gogashooda ku dhex dhaqmaya oo isla faraxsan reema gacmaha garanay lugaha ka waran ma jiraan xubno kale oo insiga iyo jiniga ku kala duwan yihiin oo sabab u ah farqiga raaxada waxa ka mid ah lugaha jiniga lugihiisa kuwa ugu qorxoon waa qoobka fardaha waa kuwayga oo kale hadda weliba anigoo insi isku ekaysiinaya ayaana lugahayga doorin karin meesha kaliya ee qofka jinka laga eego waa lugaha si kasta oo iskugu ekaysiiso dadka lugaha baa doorsanaynin teeda kale jiniga marka laga reebo kuwa ka dhashay qabiilka Saalid iyo Baalis inta kale lugahoodu waa luga sida dugaaga oo kale ah waxa ay leeyihiin cijiyaha libaaxa oo kale in ay wax mudaan ama ay wax gooyaan mooyee laguma raaxaysan karo qof yar la ayaa tahay xaqiiqdii aniga insiga ayaad igaga aqoon badan tahay waxyaabo badan oo aad halkan ku sheegtay oo la xiriira farqiga raaxada ee jinka iyo insiga u dhexeeya bal waxaad ii sheegtaa adiga weligaa raaxo ma dhamisay maya aniga xagga nolosha jiniga weli waan ka yarahay 175 sano oo kaliya ayaan jiraa waan inaan 210 sano aan gaaraa si uu nin jin ah ii damaacin karo balse marka loo eego insiga qof weyn oo raaxada ka bixi karta ayaan ahaan lahaa haddii uu nasiibku intuu isaacido aan heli lahaa nin insi ah oo i guursan ah hase yeeshee raaxada insiga ayaan daawashadeeda ka dhargay oo kana maqsuuday waayo dadka iyaga oo aan ii jeedin ayaan inta dariishada u fuuro ka daawadaa kuwa degan guryaha suuliga ku dhex leh qolalka jiifka iyo kuwa hoteelada degan waxaan u fadhiistaa irida suuliga qolka u dhex taalla tartiibtayda ayaan iska daawadaa teleefankayga ayaan ku duubtaa balse waa telefoon jinni oo jinni unbaa daawan kara haddii aan xoogaa qalbi xanuun ah dareemo marka ay raaxadoodu dhiidhiin marayso waan isaga yara jeestaa haddana waan iska soo midhacsadaa mararka qaar inta ay cuudubilaystaan ayaan cararaa oo suuliga ayaan galaa shanqarta iyo neeftuurka ayaan halkaas ka dhageystaa iyadaaba eber ayay ku dhaantaa balaayo ayaa ka dhacday oo hal ceeboobay haddii aad dadka duubaysaan walba ma jiraan dad aadan adinku arki karin waxaa jira dad badan oo mar walba adkaarta akhrista
kuwaas waa naga xaaraan in aan cawradooda aragno balse dadka caadiga ah ee aan bisinka inta badan xasuusan waan iska daawanaa waana duubanaa markii aan doonno. Rima waxaa la sheegaa in jinniga ay hawsha raaxada kala qayb galaan dadka marka ay bisinka hilmaamaan. Warkaas ma jiraa? weliba shaydaanka waa xaasid qofka bisinka hilmaamo andhuftiisa ayuu ku tufaa wasaq ayuu ku dhex daadiyaa labada qof ur aysan muuqaalkiisa u jeedin ayuu dhexdooda ka abuuraa ninka xaniiyaha ayuu ka jiijiidaa si uu u himid jabiyo gabadhana dhidid shaydaan oo uraaya ayuu sanka ka mariyaa si ay u moodo in ninka dhididkiisa uu soo uraayo. waxa ay dad badan jecel yihiin inay ogaadaan sida aan isku baranay aniga iyo adiga bal inta aan u gudbin qaybta ku saabsan sida aan labadeena isku baranay waxaan ku tusay dhowr fariimood oo ay dad badani arrintaasi iga weydiiyeen. ma jiraan waxyaabaha ka tagtay oo ku saabsan raaxada jinka iyo insiga? haa, tusaale dumarka jinniga marka ay suuradooda caadiga ah ee jinniga leeyihiin xubinta taranka waxa ay kaga taallaa xabadka kore. ninka jinniga ahna waa sida ninka insiga oo kale. sidaa daraaddeed ninka jinniga ah gabadha xaaskiisa ah marka uu doonayo inuu xaajo guto waa inuu xabadka ka fuulo. taasina waa dhibaato waayo gabadha jinniga ah jirkeedu waa khafiif culayska ninka jinniga ahna ma xamili karto. sidaa daraaddeed iyada oo suuxsan buu ninka jinniga ahi ka muraadsadaa marka uu ka tago cambaar kadib ayay soo miirsataa. intaas waxaa dheer jinniga afkiisa carab dhan ma leh wuxuu leeyahay sagluulku waa laf sida qaado camal ah oo cuntada uu afka gashado u qaada dhanka dalqada waana sida birta oo kale oo uma jilicsana sida carabka insiga. haddii inta faruuryaha qofka kale lagu taabto wax ma xanxantayn karto sagluulka. sidaa daraaddeed ninka jinniga naagtiisa ma baashayn karo faruuryaha ma leh oo afkiisa waa sida eyga oo kale. raaxada ninka jinniga ah waa midda dhunkashada iyo baashi la-aan ah midaasna in aysan macno lahayn adiga ayaa markhaati ah oo qudhaada xaasle ayaa taha. marka insiga waa in uu allah ugu shukriyaa nimcada. wow, maankayga ayaad gadi rabtaa adiga. waxaan oo dhan sideed ku ogaatay? weli wax badan ma aanan baran waayo waan yarahay balse marka aan gaaro 500 oo sano oo aan jinniga insiga raaxo la wadaago markaas inaad wareysato ayaa fiicnaan lahayd. haddii aan kuu sheego xogahan sida aan ku ogaaday aniga ayaa jinni ka dhashay. xogta jinniga waan ogahay insiga muddo sanado badan ah ayaan guryo badan oo kuwooda ah tegay oo arkaya sida ay u dhaqmaan iyo sida ay u raaxaystaan. Rima dad badan ayaa isoo weydiiyey sideed isku barteen gabadha Rima ah. hadda ka horna waan iga diiday arrintaasi in aad la wadaagto. bal hadda adiga oo tixgelinaya codsiyada dadka asxaabteyda ah wax yar uga taabo isbarashadeeni sida ay ku timid maadaama ay asxaabtu aad u xiiseynayaan arrintan. aniga hore ayaan kuugu sheegay in aan kugu soo bartay bandhigii buugaagta ee sanadkii hore ka dhacay Muqdisho. markii aan arkay in dad badan kugu mashquulsanaayeen ayaan anigana ciwaankaaga qortay adiga oo dad u sheegaya ayaan iska qortay geetalaalka hoolka u dhow ayaan saarnaa. markaas gabar aan gurigeeda wax ka deganaa balse iyada aanay ogeyn ayaa meesha joogtay. gabadhaas ayaan iska soo raacay maadaama ay si qurux badan u labisnayd waxaan mooday in ay subaxaas ninkeeda u socotay. waxaa qabo nin xildhibaan ah oo madaxtooyada seexan jiray balse sida aan u soo daba socday bay keentay Hotel City Palace oo ku yaala meel aan ka fogeyn xeebta Lido ee aan deganahay. markiiba Facebook ayaan kugu soo darsaday waad i aqbashay. muddo ayay igu qaadatay in aan kula soo hadlo waayo waxaan ka baqay inaad i aamini weyso laakiin waxaan ka yaabay in adaygaag. ma xasuusataa su'aashii ugu horeysay ee aad i weydiisay? maya Rima, ya xasuusi. waxaad igu tiri waa qof ma anigana waxaan kugu dhahay waa gabar. kadib waxaad igu tiri ma ku aqaanaa waxaan kugu jawaabo maya. kadib waxaad igu tiri qayr sheeg. waan fahmay. adiga dadka caadiga ah ee insiga ah Facebook ma ku darsataa oo asxaab kale ma ku leedahay? jinigase baraha bulshada ma isticmaala? haa, 2,000 ka badan asxaab ah ayaa iigu jirta. jinni Facebook wuu buuxaa. haddii aanan Facebook ku jirin sideen ku ogaa meesha uu habeenkaas qayr ka jiro? kuwa loof iyo sawirro isku diraya ayaan fariimahooda gaadgaadaa markaas ayaan meesha ay joogaan ugu tagaa waan iska daawadaa marka ay hawshooda qabsanayaan. intaas ayaa ii dan ah. Rima hadalkaaga soo looma fahmi karo cabsi gelin. Soomaaliya meel ka baxsan weligaa qof ma u raacday? maya, Muqdisho iyo Soomaaliya meelo ka mid ah weligay ma dhaafin. haddii aan fogaado Hargeysa ama Boosaaso ayaan ku soo luga baxsadaa. habeenkii marka uu nus gaaro waan soo laabtaa. jiniga aaladda internetka ma isticmaalaa?
tiknoolajiyad isaga soo saartayse ma leeyahay? jinniga dhanka awoodaha dabiiciga ah ayuu ku dheereeyaa, balse tan wax soo saarka dhanka tiknoolajiyadda kuma dheereeyo, balse wuxuu isticmaalaa. Tusaale, jinniga dad caadi ah oo muslim iyo gaal leh, Soomaali iyo ajnabi leh ayay isla shaqaystaan. noloshu waa isfaham kaliya, sidaa darteed tiknoolajiyadda ayay isla adeegsadaan. jinni ayaa si caadi ah fariin loogu diraa email, isagana wuu ka soo jawaabaa. waa caadi waxaas. Reema, dad badan oo asxaabteyda ka mid ah ayaa waraysigan daawan doona. waxaan jeclaan lahaa in aan muuqaalkaaga uga sheekeeyo. haddeer waxaad i hor fadhidaa adiga oo leh muuqaalkii gabar insi ah, balse lugahaaga unbaa qoobkii fardaha oo kale u samaysan. suurtagal ma tahay in aan ku arko adiga oo leh muuqaalkaaga jinniga ah ee dabiiciga ah? igana ballanqaad inaadan i dhibaataynayn. ya allah, raalino, please Reema, jawiga caadi ku socday. su-aalaha qaar iska ilaali si aan kuugu talagelin in ay dhibaato ku gaarto. ma rabi hadda waxaad ku sigata in ay iirmadayda ku saaqdo. iirmo maxaa waay Reema? marka aan xanaaqo, indhahayga waxaa ka imaanaya iftiin buluug ah, kadibna mid jaallo ah sida haddaba arkaysay. haddii iftiinkaasi indhaha uu gaduud noqon lahaa, kadib aan kuu soo eegi lahaa, waad guban lahayd. ka gudubtaas hadda waraysigeeni ayaan wadanaynaa Reema. Reema, waxaad ii sheegtay in jinniga ay 3 farood leeyihiin. hadda oo aad insi isu ekaysiisay waxaad leedahay 4 farood oo keliya. taas maxaa u sabab ah? ma ii sheegi kartaa ama ma ii fasiri kartaa? hadda jirkayga meelo badan ayuu kaga duwan yahay insiga. lugaha waa qoob fardeed oo kale, farahayga waa 4 farood, gacan walba iyo lug walba. ilkahaygana waa 3 kor ah, 3 hoos ah iyo 4 goos oo kaliya oo hoos ah, balse qof aanan aniga dareensiin ma arki karo. Reema, kursigan aan kuu dhigay si caadi ah uguma fadhidin. caadi uma fadhiisan kartid miya? adiga dhan waad dhaqdhaqaaqaysaa si unba u fudfududahay. maxaa sababa? jirkayga wuxuu ka samaysan yahay 400 oo moolo xubneed. halkii mar ee aan boodo waxaan ku duuli karaa xawaaro dhan 1500 oo mayl daqiiqadii. adiga oo halkaa ila fadhiya ayaan intaan Hargeysa tago, Kismaayo tago, haddana 5 daqiiqo gudahood kugu soo laaban karaa. marka jirku wuxuu leeyahay rafjiid dabiici ah oo u diidaya in uu meel ku nagaado. Reema, waxaan ku weydiinayaa su-aal adag. jinniga wuxuu ku darsamaa insiga, wuu waalaa. taas beddelkeeda insiga miyuu ku darsami karaa jinniga? mase idin waali karaa qof insi ah sida aad adinkaba u waashaan insiga? maya, dadka qaar waxaa jira in sixirka bartaan kadibna jinniga ku shaqaysta. kuwaas inkastoo ay dembi adag ku dhaceen xag diin ahaan, haddana jinniga way ku shaqaystaan, wayna ka awood badan yihiin. wayna dhacdaa in si gaar ahaan kuwa jinka dhaawa ama dadka ka daweeya ay awood u leeyihiin in ay jinka arkaan oo dilaan, balse inta ku darsamaan ma waali karaan. awooddaasna insiga lama siin. waan gartay Reema, ma u fasaxanahay in aan wax kaa weydiiyo siyaasadda, dhaqaalaha, diinta iyo hantida ay leeyihiin jinniga? haa, balse su-aalahaaga ha asluubaysanaadaan. inta aanan ku weydiin su-aalahaas, haddii aan dabeecadaha jinniga wax kaa weydiiyo, horta jinnida miyuu cunaa hilibka insiga? yacni dadka ma dilaa? haddiis uu dilana oo uu cuno, waa noocee jinnidaas? bal ma ii sheegi kartaa si ay haa, jinniga qaar wuu dilaa, dadka dhiigga ayuu ka nuugaa, wuuna cunaa hilibka dadka, balse kulli jinniga ma wada ahan. tusaale, jinniga la yidhaahdo quulu waa kan ugu halisan, aad ayuu dadka u ugaarsadaa. wuxuu isku ekaysiiyaa bahal sida libaaxa. marka uu qofka dilo kadib lama arko, dhiigga ayuu qofka ka nuugaa, beerka ayuu kala baxaa ama wadnaha. jinniga hinna sidoo kale waa halis, jaanka dadka wuu gubaa, isagana kadib wuu cunaa. wuxuuna ka soo raacaa qabuuraha habeenkii, balse qabiilkayga silad hilib dhan ma cuno. ibliiska iyo shaydaanka iyaga awood ay qof insi ah wax ku yeelaan ma leh, balse waxay awood u leeyihiin in ay qofka fidneeyaan. qalbigaaga oo adiga lagaa qariyay ayay iyaga daalacan karaan, oo wixii ay doonaan ayay kuugu sheegi karayaan qalbiga. waan gartay. insiga waxa ay leeyihiin hanti aad u badan. waxaa ku jira maalqabeeno waaweyn oo muslim iyo gaalba leh.
idinka jinni haddii aad tihiin ma leedihiin maalqabeeno? haa, dadka annaga ayaa ka maalqabeensan jinniga maadaama uu aad u dhaldhalo wuu tiro badan yahay. dadka adduunka ku nool wuu ku toban laba jibaarmaa, balse jinniga maalqabeennada ah waa malaayuumaad. qaar baa buuro dahab ah leh, qaar baa dal dhan keligood leh oo inta la nool ayay addoommo u yihiin. qaar baa suuqyada lagu iibiyaa waxyaabaha xunxun oo ay u xiran yihiin oo keligood leh. marka maalqabeennada ma yara. Rimaa, adiga wax hanti ah ma leedahay? inteena la eg tahay hantidaada?